Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga waa Saacid Maxamed Cali. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno sidee loo helaa fonts qurux badan. Application ku sahla inaad hesho fonts qurux badan. Haddaba casharkeena guda galno. Application waxaa kala soo degi kartaa Play Store-ka adigoo qoraya Calendly. Hadda application waa kana aniga waa la soo degay. Sidaas ayaad u qoraysaa Play Store-ka. Search Play Store-ka ayaad halkaas ku qoraysaa. Aan guda galno. application wajigiisa hore sidaan ay kugu soo baxaya waxaad ka dooraysaa choose a button oo macnaheedu yahay mid dooro. Choose a button ayaa leedahay mid aad rabto ayaad dooranaysaa. More-na waa dhihi kartaa oo kuwo kalena waa ka dooran kartaa oo iyaga la mid ah. Hadda aan tijaabino waxaan dooranayaa midaan ciidda ku qoran. Magacaad rabto ayaad ku qoran kartaa. magacaad rabto ayaad ku qoran kartaa. Magacuna waxaa la rabaa inuusan ka badnayn 5 xaraf ama 6 xaraf inuusan ka badnayn. Sidaas arkayso hadda waa kaas arag haddii aan dhaho intaas haddii aan ku daro waa uu diidayaa wuxuu leeyahay the name shall be in English letters without. Haddii aan hal magac ka dhigo oo 5 xaraf ah waa aqbalayaa waa kaas inuu soo qoray Saacid. Kadib waxaad leedahay save ayaa leedahay save image. Hadda aragtaa si toos ah inuu galay masawirada ama galerigiina. Waa aragtaa inuu galerigiina si toos ah galay. Waad aragtaa inuu galerigiina si toos ah galay. waad ku maasaytaa waqti qiimaha badan ku bixisay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad leedahay saaxiib gaar ah la jeceshahay inuu barto inuu helo fonts qurux badan ugu yar qaybtooda ee faallooyinka. Mahadsanid.